daawadayaal ku soo dhawaada warbixin si gaar ah aan uga hadlayno loolanka loogu jiro cidda noqonaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. shakhsiyaadka doonaya in loo magacaabo xilkan ayaa u kala qaybsan saddex qaybood. qayb waxay aad ugu dhow yihiin madaxda sare ee dalka waxayna ka dhaadhiciyaan inay noqon karaan cidda ku habboon ee booskan buuxin karto. waxayna doonayaan in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. xubnaha kale ayaa iyaguna ah kuwa aad ugu dhow shakhsiyaad saaxiib la ah madaxda haatan talada haysa, waxaana xubnahan saaxiibka la ah madaxtooyada ay doonayaan in siyaasiyiinta ay wataan loo magacaabo xilkan si ay u noqdaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ee bedeli doona gudoomiyihii hore ee booska ka baxay. qaybta kale ayaa iyaguna ah kuwa ay taageerayaan odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka Banaadir, kuwaas oo doonaya in loo magacaabo shakhsiga ay iyagu wataan. inkastoo xilligan dad badan ay doonayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir, haddana waxaa la sugayaa gudoomiyaha imaan doona iyo qodobada loo baahan yahay inuu wax ka qabto. sidaas oo ay tahay shakhsiyaadka xusulduubka xoogga leh ugu jira gudoomiyaha gobolka Banaadir noqoshadiisa ayaa qaarkood waxa ay sheegayaan inay noqon karaan beddelka gudoomiyihii booska ka baxay. dadka indha-indheeya siyaasadda ayaa sheegaya inay ku xiran tahay shakhsiga loo soo xusho awood ahaan, taageerada uu ku dhex leeyahay beelaha dega gobolka Banaadir iyo sida madaxweynaha uu ugu kalsoonaan karo qofka loo doorto in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir. kaasi oo loo arko inuu yahay mid ku habboon ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu horreyso amniga gobolka Banaadir. tallaabada xigta ayaana ah ammaanka xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ah halka uu ku shaqayn doono gudoomiyaha lasoo magacaabo. dad badan ayaa dhaliilsan ammaanka xarunta maamulka gobolka Banaadir, kuwaasi oo sheegaya in habacsanaan amni ay ka jirto xarunta maamulka gobolka Banaadir, waxaana taasi caddayn u ah in gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho uu ku baxay xarunta maamulka gobolka Banaadir qaraxii ka dhacay 24 bishii Juulaayo. qaraxaasi oo la sheegay inay fulisay haweeney dadka baahiyaha gaarka ah qabo oo shaqo laga siiyey xarunta maamulka gobolka Banaadir kadib markii loo eegay xaaladda ay ku sugan tahay. Soomaalida ayaase hore ugu mahmaaday ninka abayso koriyow adigaa u aayi doona. su-aasha isweydiinta mudan ayaase waxa ay tahay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir loo soo magacaabi doono ma noqon doonaa ruux buuxin kara booska uu ka baxay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. wax ka qabashada ammaanka gobolka Banaadir oo ah halka ay ku shaqayso dowladda Soomaaliya ayaana ah midda ugu weyn ee gudoomiyahan hortaalla. su-aasha kale ay isweydiinayaan shacabka Soomaaliyeed ayaa ah ma la bedeli doonaa hay'adihii ammaanka ee shaqada ku lahaa xarunta maamulka gobolka Banaadir oo awoodi waayey inay fashiliyaan qaraxii 24 bishan ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. tan kale ee xigta ayaa iyaduna waxa ay tahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ma wuxuu la imaan doonaa gudoomiyaal cusub oo uu magacaabi doono degmooyinka gobolka Banaadir, mise isku shaandheyn ayuu ku samayn doonaa gudoomiyaasha 17 degmo ee gobolka Banaadir. dad badan ayaa aaminsan in gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ee lasoo magacaabi doono inuu ku soo aadi doono xilli adag, marxaladuna ay tahay mid ka beddelan sidii hore. isbeddelka ugu badan ayaana gudoomiyaha waxaa laga rajaynayaa inuu ku samayn doono hay-adaha amniga ee shaqada ku leh xarunta maamulka gobolka Banaadir, iyadoo 20 maalin laga joogo waqtigii uu dhacay qaraxii galaaftay gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ayaa xilligan waxaa soo baxaysa loolan adag oo loogu jiro cidda noqonaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dhursugayaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya shakhsiga uu soo magacaabi doono gudoomiyaha gobolka Banaadir. daawadayaal intaasi waxaa ku eg warbixintii aan sida gaarka ah kaga hadlaynay loolanka adag ee loogu jiro cidda noqonaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir oo la filayo in dhawaan lasoo magacaabo. haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir saaxiibadeena oo ka mid noqo si aad ugu soo biirto subscribe channelkan kadibna taaba calaamadda gambaleelka ah si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan soo gelino channelkan. waadna ku maasan tahay la socodka iyo daawashada warbixintan. hana ilaawin daawade inaad sii sheer garaydo si saaxiibadaada kale ay kula daawadaan.